aragtaan waa wada xirxiran yihiin cunto ma haystaan biyo ma haystaan daawo ma haystaan waxay hugtaanna ma haystaan guryahoodii halkan ayay uga tageen sidaad aragtaan waa wada xirxiran yihiin muddadii aan soo soconnay cid aan ku aragna ma laha guri kasta kuwana iyagoo furanaa laga cararay kuwana si fudud ayaa lagu xiray alaabadii way dhex taallaa qalabkii wuu dhex yaallaa reer kasta ilmihii iyo habartii odagii ayaa gacmaha isqabsaday waxay noo baxeen magaalada bannaankeeda marka saddex xaafadood oo ka mid ah xaafadaha beledweyne ayay masiibadan ay ku dhacday number waxa la qiyaasayaa ilaa 55,000 oo qofood inay ka qaxeen magaalada gudaheeda haddana weli waxa la rajaynayaa dad intaas ka badan inay qaxi doonaan sababtoo ah riboodka aan ka helayno webiga Shabeelle dhinaca ku yimaada Itoobiya ayaa waxa naloo sheegaya inay biyo intii hore ka badan ay ka soo socdaan marka mar haddii biyo kala soo socdaanna waxaa khasab ah in barakac kale hor leh iyo dad hadda meelaha biyuhu aanay gaarin inay gaari doonaan marka waa uga tacsiyeynaynaa dadkii dhibaatadan maxaan ku rahdaa ay ku dhacday waa la qaybsanaynaa dareenkooda waa la qaybsanaynaa murugada haysata wixii aan la qaban karnana waa la qabanaynaa waxba kama hagranayno ilaa shalay ilaa maanta ilaa iyo habeen hore ilaa usbuucan oo dhan waa ka shaqaynaynay sidii u heli lahaayeen toondooyin ay seexdaan sidii u heli lahaayeen cunto sidii u heli lahaayeen biyo sidii u heli lahaayeen maxaan ku rahdaa waxyaabaha bini'aadmigu u baahan yahay dadkii magaalada bannaankeeda ayay daadsan yihiin inta badan hadda waxyaabaha ugu degdegta badan oo aan leenahay sidii la rabaa loo helay waxa ka mid ah biyo hase yeeshee inkastoo iyaga laftooda aan loo helin sidii la rabay hase yeeshee cuntada iyo waxyaabaha nafaqada carruurta la siiyo nutritionka iyo dawadii iyo waxyaabahaas oo dhanna sidii la rabo looma helin marka waxaan rajaynaynaa dawladda Soomaaliya iyo deeq-bixiyaasha caalamiga ah inay u soo gurmadaan masiibada rabbaaniga hadda wada aragtaan aan hadda ku soo soconnay kilometers aan ku soo dhex soconnay biyaha magaalada xaafada ka mid ah magaalada